walaalaheen ee Turkiga saraakiisha saraakiil xigeenada dhammaan iyo kumaandooska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ururka gorgor ee qaybtiisa afaraad dhammaantiin bahda saxaafadda waxaan ugu salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdi salaam maanta waa maalin noo farxad badan waxaad xasuusataan 120 cisho ka hor ayaad waxaad ka baxdeen dalkiina hooyo waxaad muujiseen mas'uuliyad waxaad muujiseen aaminaad waxaad muujiseen runtii karti inaad dalkiina wax u soo barataan oo dib ugu soo laabataan oo si dalkiina iyo dadkiina iyo diintiinaba aad u difaacdaan aad aad kaga mahadcelinayaan runtii taliyaha ayaa ka dhawaajiyey waajibaad cusub shaqo cusub ku soo dhowaada waxaad ka mid tihiin aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saad og tihiin waxaan ku jirnaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad waxaan ugu faraxsannahay inaan haysano ama aan helno wiilal dhalinyaro ah diyaar u noqday inay bixiyaan naftooda cirdigooda sharafkooda inay dalkooda hooyo u bixiyaan si ay ugu difaacaan diintooda si ay ugu difaacaan dalkooda hooyo waa la socotaan dalka dhibaato badan ayaa ka jirto waxaan la dagaalamay dad isku dhaqan aan nahay oo muuqaalkeena leh oo urur al-shabaab la yiraahdo iyo Daesh waxaa idinkaga fadhiyaa ummadda Soomaaliyeed ee kaga fadhisaa inaad ka difaacdaan inaad ka xureysaan inaad sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed aad soo celisaan ilaahay xamdigiisa waxaan ognahay inaad geesiyaal aad tihiin waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ka dhalanay ummadda Soomaaliyeed aan haysano wiilal iyo gabdho oo dhammaantoodaba runtii geesiyaal ah taariikh ayaad ku leheedeen geeska Afrika waxaan rajaynaynaa taariikh ka fiican inaad samaysaan runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii waqtigiisa ugu badan uu geliyey si uu dhisi lahaa ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo isna habeen iyo maalin runtii ugu shaqeeyo si inuu ciidanku uu member u ka yahay oo kale ciidamadu u garab taagan yahay isigana aad ugu mahadcelinaynaa runtii waxaan soo gaarnay waqti aad u fiican maanta idinka ayaa soo laabateen maalmaha soo socdana waxaan diri doonaa ururka shanaad insha allahu tacaala meelaad wax ka soo barateen iyagana sidoo kale inay wax ugu soo bartaan waa wanaagsan ayaa ummadda Soomaaliyeed u dhashay taasoo aan dhihi karno inaan urur buuxa la diro oo dalkiisa dib ugu soo laabta si wax xaaladaha og oo mid kale la diro soo laabta mid saddexaad la diro kii afraad maanta idinka aad tihiin ee kan shanaad insha Allah aan rajaynayna inuu dib ugu soo laabto dalka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo bashbash waa mahadsantihiin aad ayaan kaga mahadcelinaynaa anaga hadda wasaaradda gaashaandhigga nahayna garabkiina ayaan nahay hiil iyo hooba insha allahu tacaala idin garab taagannahay guulaysta Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha guulaysato ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha guulaysto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha guulaysto insha allahu tacaala muuqaalkiina wuxuu jibinayaa cadowga ummadda Soomaaliyeed guulaysta ayaa idin leeyahay